والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ساوي جرا كورسان ساعة أنا لحظة ساوي جرا برنامج كاسو هذا يا ما مغلسان ما مغلسان برنامج كان سيشر جرايا وهي دائما غلسان برنامج كان سيشر جرايا وسي قدوية هنا سوق راعي محن يقرأ أنا أتكلم أنا سوق راعني وروح أنا ذو يديني يا متقنع مولد ولا العمل أنا حين مشغول ملهد مياه مشغول معها وحيد دقن حما بان كهل أنا ما فهمت قف كده دقن حما يقولنا عينا كهل أديك يكون طالع أنا وحن سوشيال ميديا وتشوجها إلى كدفاع الدين الإسلامك وحيد دقن حنا شيء marka adiga hadda leedahay dad baad ku mashquulaysa oo mashquul u aragto waxa weeye waxaan caadi baan noqonaysa waxaan hadan ka aamusno ilka cas sameeynayo caadi bay noqonaysa si shar garay intiin saxdii diinta difaacaysa si shar garaya haduu qabiilidahayo idinkeedii taala aanu qabiili waxa ma aqaano qofkii dhaqan xumo meeshan la yimaada waxa weeye waan ka hadlayaa iyo dhaqan xumada waan ka hadlayaa waayahay fadlan barnaamijka sii gudbiya intiina xaq dirka baan iga badan dad ku mashquulaysa iyo waxaasina ma aha sheeko meesha taala ma aha ilka case fiidowga imkaan soo galiyo waa arkaysaa ninkani horta ilka case la leeyahay ma garanaysaay midaan ii sheegaya ninkan ilka case la leeyahay waan ku salaamaya okay waa mahadsantahay mariyo waa mahadsantahay waan ka qaaday ilka case waa nin horta ninkani 10 caruur leeyahay ninkani ilka case ninkan lagu sheegaa 10 caruur ayuu dhalay waana hadaanu 60 jir gaarin ilka case waxa la maqli jiray labadii kunba ayaa dadka qaar heesiisa dhigeysan jiray heesiisa labadii kunba la dhigeysan jiray ilka case nin yar maaha maanta oo daa u dhimantay ma fahanta waa nin weyn weeyaan ama 60 buu jira ama waa 55 meelahaas u jira waxa weeye 10 caruur leeyahay xaas horu leeyahay ilaahay caruurtiisa iyo 10kiisa carruur barakeeyo anigu ma diidani ma garanaysaa xaas inuu leeyahay caruur inuu leeyahay ma diidani kolba inuu guursanayo garoob ma diidani ama garoob ha guursado ama naag kolba islaan ha guursado isaga u taala shaqadaas anaga ima taalo ninkani fanaaniinta Soomaaliyeed muxuu kaga duwan fanaaniinta Soomaaliyeed ee kale ee badan imika waxa weeye beesha ogaadeen hadeen soo qaadano xariir baa ka dhashay xariir waa fanaan sharaf leh ninka la leeyahay Suldaan Seeraar waa nin sharaf leh oo ma garanaysaa macquula waana ka yari ragaas ninkan waa 60 jir weyn 60 jir habeen walba ruunay ruuxdahay ma waxa dhageysanaa markaan walaal naga tag daada raadu dhageysan ku talay waa ninkan waa dhaqan xuyi ما فهمت سودان سارة رج نشرف لوين هي سعادي سوق على حرير وضع كيسان نينك حرير واحد صوني سوا مركز وناجي سي شرفتي ساركتو ونينك فنك باللومتر قل ما صوني سوا ونين شرف قف ولقي اللي هنا ماركسيد حرير وناكتي سميريا كيني ماركسيد وناكتي سالكن هل كان يكب حدا يسلس صور وحاس ناك دبل هيو ناك يسكت دشيني ماركسيد سودان سارة ونين أوجادينا شرف له ilka casar dhaqanka ogaadeenka male ogaadeenka naqaanay dhaqankiisa male wuxuu malawa Kenyan iyo ruuxa malawa Kenyan baan walaynaa wallahi dhaqanka ogaadeen malaha wallahi anagu ogaadeen isku deegaan baan si fiican baan naqana ninkani dhaqankii ogaadeen male waxaan dhaqanka ogaadeen le Suldaan Seeraar iyo Xariir weligood iyagu naag soo bandhigay markiisid
iyagoo naag isku lohlohaya ninkan stageka dhan ee dadku daawanayaan intuu ordo naag naasaha intuu saa soo qabto is isku dhijinaya waa ya ruuxan waa cabtoogan sir waa cabtoo dhaqanka cabtooga leh oo wax isku mudaan sir ma garat qofkan qof caadi oo ma eka marka waxa weeye horta dhaqankii ogaadeen ma laha anigu ogaadeen ka hadli maayo ninkan inuu ogaadiyay kala ma ogiba wuxuu mala waa oromo ruuxu waa dhaqan xun yihiin waa oromo namlayni awliyahan baa la soo qoray ilka casoo awliyahan waa awliyahanna waa la sheegay naga tag waxaan waa oromo namlayni nin maaha Soomaali ma waxa weeye inagu Soomaali bayna islaam baynahay fanaaniinteenu kiisa khamriga cabba war kuwa khamriga cabba ma xishoonaya si shargalay barnaamijka fanaaniinteena kuwa khamriga cabba way ka xishoodaan ee qofka cabtooga ee ugu liita ma hadlo nimanka fanaaniinta ninkaas Suudaan Seeraad iyo Xariir iyo ma garanaysaay nimankaas ugu roon iyo BK iyo nimankii deefankooda caadi yahay ee sharafta la daweyn waxa kala badankoodu way jiraan rag badan oo sharaf leh oo fanaaniin sharaf leh way jiraan ma fahanti ninkan horta heesu soo qaado aragteen heesan TikTok ay dhalinyartu ku jaasayso ruunay ruux ninkan horta naartu caadi u galaya waa ehlu naar ilka case waa ehlu naar waa naartii oo adduunka loo soo saaray weyn qofkii jecel iyo kii nacab ma aha qof dhaqan lama soo garan inuu ninkaas ehlu naar yabaan uu aaminsan ilka case ninka leey مثلا كل بناق بوس لسه صوريا ناق يو إسرائيل ناس وديوس بس روح عندك والسلطان سيران ماشي هكيني والذهب نقاس سلطان سيران قبل سنة دارت تقول يلا سلطان سيران منك قبل سنة كواكي يسوق مقرن ساي الناس كله بيجين قبل سلاميرو استيج كسب بحي مدار سلطان سيران شرم الكوتشو يمد سويدن بوت تجي نورو تجي دنمارك بوكيسي ناق سوماليين تكو عالروس كمان دتشيو دبضنا ما قبته ما فهمت وأنا شرف لي وأنا أقعدين صار لوجا قالوا إيه أقعدين هداد مقشوا وهداد شرف لي شيخ عبد الرشيد ما كان شيء شيخ أمل ما كان شيء داد كان شرفت الله كان شيء وحنا كلا أقعدين كم فاني كرام وحنا كلا مقران صاي مربى يربد يسكون مذيع حشد عبي إيه الناركا رودهم وحنيه ودهم دلوين الكاسي كلي طبعا حاس مو قبي طبعا عالرود شيء طبعا عالرود ninkani naag garooba haduu arko xaaskiisa caruurtiisa waa ka tagaya wallahi billahi tallahi waxa weeye ninkan horta waa in caadu kardasha Soomaali waxaan idin sheegaya ama dulmi been ku socon doonaa iyo qabyaalad oo marka laga hadlo qof xun waa reer hebel lama war qofkii xun ee dulliga fanaanka dulligaaga ah waxa weeye maaha qof sharaf lama ninka fanka sida fiican ugu jira ayaa la sheegtaa laakiin nin daba iyo bari ka sheekeynaya ruux على كتاج وحاسمه وهو نارنمو تيك توك انت سو انانو عاو مقران صاحي هيستا كويسيسا اما دبدا تاغيسا دبدا روحيسا دبدا و سو بخده xishoodkii deysay ninka baabiye waa ninkaas eelo naarka ilaahay u qabsanaya bari weyn ama ha noqdaan cid walba Soomaaliya ha noqdaan reer walba ha noqdaan habliisi TikTok ay ku jiraan heesay dhigeysanayaan waa heesaha ugu dhaqanka xun leh ee ilka casaqaado marka ilka case maaha ogaadeen ki sharafta lahaa maaha waa oromo dhashay weeyaan oo dulay weey Soomaaligan warana uu garoob inuu guursado ma diidin war inuu islaamahaas meelahaas daalay iska wado ma diidani warana uu ka hadli maayo dad ba kula hinaasa ku haya maxaan ku hinaasay wadaqan ka la ilaaliyo ma hinaasa haddana markaad ku wadaqan ka la ilaaliyo ma hinaasa mashquulka daa maxaan mashquulka deena ruuxan adigu eeganayo waxba intuu soo suga مشغول كده waxay rabaan meeshan in laga dhigto meel in nightclub laga furtay rabaan Facebook ma deynina adag wallahi billahi tala xoga badan ma raadinay waliba da qof walba waxay rabaan inay qabiil lagu daayo qabiil ba waxaan waalay furta ka galaynayo ilaaha kale ma laha waxan dhageysta wuxuu sameeyay gabadha Soomaaliyeed sharafta loo xukumay waa doqonay إنا لله وإنا إليه راجعون هرت naagta xun ee bila nigiska hatta nigis ma xadna naagtaas waa yato war qofkii sawirkeeda hayay soo dhigo
naagtaa xun ee bilaanigiska meesha la taagan ee uu shafka saartay ee uu saa u qabsaday naagtaa xun ee bilaanigiska wallahi nigis macma xina sharaf darra meeshii ay yacni dumarkii soomaaliyeed maca ceebaysay taas allaha ceebeeyey waxaa bilaanigiskaabaad leedahay ka hadlina daa lama dayni war ummadda soomaaliyeed media ku jirta waxaan leeyahay ninkan bilaa dhaqanka aan iska qabano ilka xsilni ninkani walaa ogaadeen baan magaranaysa aan u hayn walaa reer kale aan u hayn waxaasuu samaynaya saacad buu ku dhegsay 10 carruurana waa dhalay xaasna waa leeyahay hore 100 buu leeyahay wakaas wuxuu isu haystaaba the one and only baaba lagu leeyahay weli ma arag fanaan ka edab daran meeshaas waxaan malaynayaa inay maraykan tahay waa maqlaysaan reer maraykanow naagtaa xun ee bilaanigiska iyaduna meesha meereysanaysa waxaan leeyahay buqdaa xun ee doqonta ah naagtaa xun ee doqonta ee bilaanigiska iyadana isku dhadhajinaysa stageka intay kasoo kacday u haysataba barack obama ama u haysataba muxuu ahaa ninkii la odhan jiray saas ugu dhegan yahy ma arkey ya waa raaxaysi waxaas war waxaan na daawanaya maqaxaabadaaniyo war waxaan maxay ahayn niyo naa dhegeysta maa maqlaysaa naag xun oo bilaanigiisa loo baahnaa oo bilaa dhaqana waanu qabanaynaa dhaqanka diintaan u fadhinaa facebooka dhaqan xumadaan u fadhinaa wallahi sawiradeedana isoo dira macluumaadkeeda horta taasaan caadi u karbaashayaba iyada waan karbaashayna waxaa la idhaaba tir ayaan saciid xaashimiya la dhaha magaceeda isoo qora wax sharaf la maaha waa maqlaysaan soomaaliyey naag ma garanaysaa ay stage intay tagto dharkiiba soo dhigatay oo sidaa u heesaysa walaalkeed me aabaheed me waa dayuusiin baan sir waxa meesha jooga anigu dadka maraykan jooga horta dhibaatada ugu badan maraykan dhaqan xumada waxaad moodaa dadka ugu soo dhaqan xumaanaya maalin walba hadday naag ilmo yar la baxsanaysa hadday naag inay yar shukaansanaysa tahay waxay u badan yihin maraykan islaamahan garoobadee daalaya maraykan joogay dhegeysta iyo wada dhegeysta dhammaantiin waa reer yurub barnaamijka sheergareya dalka yurub jooga sheergareya islaamahan daalaya maraykan jooga anigu kuwa sharafta le ka hadli maayo dumarka maraykan jooga sharafta le ka hadli maayo laakiin dadka bilaanigiska ku imanaya xafladahan ka hadlaya bilaa dhaqankaa ma garanaysaay diinta ku ciyaaraya waa ayaan saciid baa laisoo qoraya ayaan saciid maxaa ugu qoran iisoo dir sawirkeeda waa iisoo dir waxaa bilaa dhaqankaa naagta lagu dhiganaya maxaa magaceeda le wuxuu yihi waa ayaan saciid qofkaasaa garanaya okay macluumaadkeeda ila soo wadaag naagtaas waa naag aada u beerta ku jirtaan sir weyn waxa weeye aniga wax ma garanaysaay sababtaan uga hadlaya wallahi yani waan ka adkeysan kari waay dhaqan xumada ninkaas uu soo wado oo soomaali ku wado waa ogtihiin waxaan uu qaadaa fan maaha waa socdaal wiilka la leeyahy waan u garaabaya waaba nin yaroo ciyaala weyn socdaal sharma boy waa nin dhalinyaro ah baa la odhan karaa adoo 60 jira haddii lagu diiwaangeliyo runay ruux ay youtube-ka ku jirta war caawa haddaad dhimato maxaad la shir tegaysa malagu ma runay ruux buu yaqaanaa madaxa dubbo lagaaga dhufanaya war waxa weeye yani waa raab baa lasoo qoraya waa raab na orad naga yaasmiinta laleeyahy orad doqontu dhashay meesha nooga baxa anigu midaan ii sheegaya dumaraw wixii wanaagsan haddaad taageeri weydaan oo xumaanta aa u saacab tuntaan idinkaa ugu badan waxa xumaanta sameeya waana sababta naarta ugu beentiin ilaahay waa wuxuu idiin naaray wey waa raab ee hela daayay qosob baad soo qoraysa yaasmiinta laleeyahy yaasmiin khayrna waa kugu qoranta khayr laguma siiyo ilaahay ummadda kaa qabay waxaan idiin sheegaya niyow ma garanaysaay waa inayn waxaan runtaa isu sheegnaa xaqa waa in laga hadlaa waxaan ugu dhaqankii waa dhaafay reer iyo qabiil iyo waxaas meesha iska dhigno war qof walo ma garanaysaa dhaqan xunba oo ma garanaysaay diinta iyo sharafta iyo dhegta soomaalinimada wuxu dhimaya waa inaan la taageerin weyn ma fahamti caawana kaasoo kale hadduu macaa reerkaaga yahay waa inaad dayrisaa tiraahdaa ruuxaan dhaqanka xun liita annaga maaha reerkayga ma fahamti warkaasi fanaan maahe waa baraaciye okay fanaan maahe waa baraaciyaad soo qoraysa okay ninkaas hablihii tictoga
fadlan barnaamijkan sii shargareeya oo gaarsiiya dadka muuqaalkan ku socdo. war tiktok iyo caawa haddaad gasho waa la is wada qaawiyey, dabada la ruxayaa, heesta lagu jaasayaana hees kale maaha. heesta ugu dhaqanka xun le ugu liidata ee qofka Soomaali ugu liita qaado ayaa meesha lagu jaasaya. ma fahanta? bal waxaa niicida heesaha la qaado dhan dhegeysta ya roonay ruux calanka ay taagan halkan baa bu'aale magaalooyinkii Soomaaliyeedna waa ceebay bu'aalaan ka yimid libaaxa baan shanta Soomaaliyeed baan ahay. shan Soomaaliyeedna ma tiida ma ku sheega wariya ma ku sheega wax shan Soomaaliyeedna waxa kama ogidi shan Soomaaliyeed ku soo meeraysan ku raad gadanay. waxaan anigu halkan runtii ka cadeynaya dhaqan xumada ninkaas uu wado waa in Soomaali ma garanaysaa dadka wanaagsani ay arintaa ka falceliyaan oo ay ka hadlaan. gabadha stage-ka iyadoo bilaanigisa kortay ninka ku dhigdhigteen waxaan leeyahay sharafta alla kaa qaad, dadkaaga baad ceebaysay, eelkaaga baad ceebaysay, kolba ma garanaysaa nin wax isku soo shubay oo meesha ka heesaya ayaad ku dhigdhigaysaa. kolley sharaf ma laha taas. ayaan baa la yidhi ayaan ayaa la yidhaahdaa ma garata ayaan baa la yidhahdaa baa laygu yidhi kolley sharaf ma laha. marka waxaan idiin sheegayaa middaan idiin sheegayaa ninka reerka case carruuro badan buu leeyahay, 10 carruur dhalay. ninku maaha nin yar maaha, ilaa 2000 buu heesay, 2000 caada iyo icdaas ku heesay. calanka taagan meel la garanaya wuxuu yahay lama garanayo. calanka taagan uu ka hadla muxuu yarto hees micna leh, hees wax ku fadhida ragga fanaaniinta kale caadiga. horta heesuhu marka horeba ma fiicna, khayr ma laha, waa dambi. laakiin heesaha qaar baa ay sugaantii ku siira dambaysa. sugaantii baa ku siira dambayso macno yani waxa ku jira ma garanaysaa marka dhageysato yani dumar qaawan iyo daba la ruuxayo waxaas kuma jiraan. niiko xaaraan daba ruuxis ma garanaysaa boodbood wax yani faasiq kabiir ehlunaar adduunka maraya dad maqasho, ehlunaar adduunka maraya dad maqasho waa ilka casi. ma faham? gurigu dhisanayana waxa wey guri caadi ma noqonayo. soo ma garan qof aan salaad tukanay yani usaa heesaya dhaqan xumada noocaasa samaynaya, dumarku aanay u kala soconayn. ninka raggaa waxaa la rabaa xaaskiisu mudda gacanta maca waxaan la ogolayn xaaskaaga si babliga inaad u qaqabsato oo dabada ku dhigto lama ogola, oo duyisnimo. war anigu waxaan taageersanahay ninka ragga ah haddaad media macaa ku jirto xaaskaaga weligaa media keen. haddaad media ku jirto nin raggaa tahay, haddaad xaaskaaga aad fiis ku raadsan. qaar baa xaaskooda soo ag fadhiisanaya heblaaya maxaad leedahay. kuwa ugu dilisan een ka xanaaqa een isla waxaan iyo miya madaxa laga jaro waa kuwaas. waa ninka naagtiisa soo ag fadhiisanaya ee leh heblaayo dadka maxaad u sheegaysa. war xaaskaaga sharaf bay leedahay, qiimay leedahay. ma aha inaad indho walba hor keento, meel walba inaad hor keento, bulaacad hor walba. facebookan horta waa bulaacad baanku ama media qaabka loo isticmaalo markay qaldantay bulaacad buu noqonaya. xaaskaaga habeen walba haddaad fiis ku raadsago waa duyuusiinta ugu badan baa noocaasnaya. yacni gabadh buu soo guursanayaa waxa ka dhaadhacsan naagtaada gad jirhkeedu gadaya. wuxuu leeyahy istaago dadka u kala kici, dadka u kala kici buu taagay. ninkaas ninka gabarh siista, ninka gabarh ku darsada, ninka uu la xididka yahay, ninka ay magaranaysaa xidid wadaagaan, sharaf daro ayaa magaranaysaa adduunka uu la joogi. waa sharaf daro ninka noocaas. anigu waxaan taageersanahay ninka raggaa xaaskiisa waa inaan media keeni. waxaa laysoo qorayaa dayax danushe ka hor. anigu dayax danushe ma arag isagoo naagtiisa ma garanaysaa ay dee youtube miyay u leeyihin youtube. dayax danushe iyo naagtiisa youtube may soo galaan anigu ma arag. waa laga yaabaa inay sawir soo wada galaan. sawirka anigu ka hadli maayo, sawirka ka hadli maayo. lakin waxaan ka hadlayaa war naagtaada inaad habeen walba isdaba socotaan. halkanaan maraynaa, halkanaan soconaynaa sida ka duyuuska maaragta. ka duyuuska naagtiisa xambaarsan maaragta. ka doqonka Sweden jooga maaragta nin ragga kaas ma. ka salxamaale bidaarta la maaragta ee doqonka wajiga dhuuman leh maxaa la dhahaa magaciisa. naagtiisu maalin walba meesha ku xambaaraya.
Facebook aan gelayna waxaan ku arkaynaa naag la xambaaray halkan aan gelayna naag la xambaaray aan ku arkaynaa meel wad gasho naag la xambaaray la sido hay ugu mashquulinayo isagu waa dayuus horta ninkaas waa dayuus akbar kolba naagtiisu meel naagtan xun ee foosh xun le wajiga weyn naagtan xun ee foosh xun le uu sito maragta ummadii Soomaaliyeed khaatiyaan bay ka taagantay way naceen ma fahamta hal walba naag buu soo wareejinaya naag heblaayaan sida halkan aan marayna baskay gaarsi waa doqon weyn kaas dayuus weyn waxay rabaan in lagu daawado waxan waa dayuusnimo halkii ugu dambeysay war meel walba naga soo baxaya maxaq buu nagu leeyahay in anigu Facebook ma waxaan u joognaa naag nisita ayaan u joognaa anigu sankaasay naga saareen sankaas ma fahant may guryahooda isku xambaaraan maxay u soo galayaan media meesha furtaba digdig isagoo sida hanaga mashquulina mid kale waxay sameynaysaa inaan yarba intay Kenya duur la tagto oo Kenya la soo gasho oo hadda doonto ay soo macsiyeystaan ay waxay leedahay yalla nagu mashquulin naag walba oo nin isa soo sawirta ama duur la tagta ama meel masaal la tagta oo balaayo xaraan iyo qurun soo sameeya waxay ku leeyihiin yalla nagu mashquulin war waxaan hadda sameynaysan dambigu hadda dambi sameynayso hadda la jaharto la yuhibbu Allah jahra bil suu la yuhibbu Allah al jahra bis suu ilaahay xumaanta in la jahro oo dadka la tuso ma magarasa ma jecla war hadda dambi sameynayso na hadii kayn lagu la tagayo oo bilaanigisto bilaa dhaqan tahay oo kalba nin kayn kula tagayo oo kaymaha kalba magarasa ay waxa doontaa ku soo sameynaysan hanoola iman dhaqan xumadaas meelahaas qarso waxaas dambi baad gasho ma dambigu adiga ilaahay uu idin dhaxeeyay wixii ilaahay toobad weydiiso kaliya soo duubin iyadoo meelahaas lagu weerinay ma fahant marxaati annaga noo dhigin dambiga iyo macsidaad ku jirto gabadhu inay nin si gaar ah ay meel gabadhu inay nin duur la tagto iyo bani duur baa laga tugay duur meel kayna inay gabadhu nin la tagto iyo bani gabadhu inay magaran saay meelaha madowga habeenkii labada habeenimo duurka ay gasho oo nin meelaha la gashay iyo bani diinto banayso waati si islaamnimadii mar hore la iska tuuray war Facebook gan mid baan idin sheegay dhalinyaro nin wado naagtiisa meesha soo dhiga u ducee waxba u duceeyeen naga u duceeyna la u duceeyaha cayn si lagu duceeyay anagu masaajid baan fadhinaa duceedaas gabadha kabalada xina daruusho ay leedahay u duceeyaha cayn wala ducadii waan ka daalay waa loo duceeyay mid walba magarasa macsiinta meelaha duurarka lagu sameeyo oo meelaha la isku kudo oo meelaha magarasa ay la is eriyado ayaa waxa lagu leeyahay yalla nagu mashquulin yalla hadal hayn bal fiirsada waxa duurarkaas la jooga soo ma garan waa saas weeyaan yaasiin ma santay mooyid xumaantu dad ma garat de waa gabadha ka hadlaysaa magaca tusma lagu sheegay ee bunka lagu sheegay gabadha bunka la leeyahay Mareykan bay ka timi ilmaheeda yar waa barlays waxa weeye qayb baa ma garanaysaa ilmaheeda waa autism waa curiyaan maskaxan carruur bay haysataa oo carruurta ma garanaysaa carruurta haysato waa ka hadlaysaa dadkii Mareykan joogay baa ka hadlayay soo waxa tusaya gabadhaas carruur bay lacag ku qaadataa la leeyahay Safiya bunka carruurteeda lacagta ay magarasa gaalada ku siiso ayaa Nairobi magarasa ay la tagaa rag loo geeyaa hodeel lagu jira duurka la isla tagaa duurka hadii ilaahay lacag ku siiyo de ilaahay duurka aad kuma oran duurka aado duurka de magarasa ay meelaso kuma oran ilaahay gabadh baa tahay inaad saas turto weyn dadkii Mareykan joogay baa ka hadlay arinta xaqiiqada sheegay sida ninka Cabdixakiim la kale dadkii Mareykan joogay waxay leeyihiin gabadhaas carruurteeda way soo dayacday laba carruur ay leedahay labaduba ma garanaysaa waa handicap ilaahay baa u keenay dhibaatadaas anu yani carruurta ilaahay handicap ka dhigi karaa laakiin hooyadii mas'uuliyad inay muujiso way ma fahamtay hooyadii intay lacag qaadato 30 kun oo doolar intay qaadato Nairobi la tagto kolba inay yaro miskiin oo gaajoonayo meel joogo xayraan oo dhoof iyo waxa raadinay intay lacagtii ula tagto oo duurka uu la galay suuna ila waa ninka oomane ee wuxuu doono uu soo sameeyo
wuxuu doono soo qaribo hadhowna in magarasa media laga barorto lacaq heblaaya lagu sameeyay waxaan la xumeeyay warano naag dambe uma hadlaynan iyo naag wala bilaanigiso nin raacda wallahi iyada u taala bilaa dhaqan naag wala oo duurka nin la gasha iyada u taala naag dambe loo hadlay gabadha sharafta leh waa gabadha de magarasa ay ama ninka si caadi u guursatay ninka caadi u guursatay ma faham laakiin kolba inta يعني حتى نيجس ما حرنا يعني بلا نيجس وين والله بلا طلع فيديو ضاوع كاس واحد حتى نروح هو سيء ما ترى وانا اللي بديها بينهم فيديو بالله الضوء ماشي ما محاضره لو دغه ما خطبه دينيه كسعته ماشي مثلا شيخ شبلا ماشي كخطبينه مثلا شيخ ملبا محاضره كجيدني يا روحان دقن حمره دربو لي waxaan naga daaniyo ana waxaan ka hadlayaa carruurtaada haddaad dulmiday ilaahay baa dee magaranaysaa arrintaa kaala kulmi doona carruurtaada xoolahooda haddaad kolba nin siiso oo nin kula tumato adigaa dee tumashada iyo lacag yani dembigii tumashada lacagtii inaad ku bixisay magaranaysaa inaad mashaakiloon barnaamijka hala sheer garayo waxaan ku noqonaya ninkii baan ku noqonaya okay sababta aan idiin sheegay midda idiin sheegay horta midda idiin sheegaya anigu Maraykan ma joogo imika laakiin dadka Maraykan jooga iyarkaadiya dadkii Maraykan joogay ayaa warkaa haya oo ka sheekeynaya oo sheegaya magaranaysaa dhaqan xumada ay sameynayaan dadka dumarka Maraykan ka imanaya ragga laftooda way sameynayaan laakiin haddana de dumarkii baa niyow moodaa magaranaysaa inay kasii ay ka dareen qof walo ilaahay nolol yar siiyay uu ka sii daray uu kibraya ikadi dio meesho ikadi ma garat qof walba oo ilaahay nolol yar siiyay waa ka sii daraya dhaqan xumo beertu galaya kolba inta bilaanigis meelaha lagu maray waxa lagu leeyahay hebelba waxay ku sameeyay way ko wallahi qof dumara oo xataa ummadii oo dhan arkayso ummadii aan ka xishoonin ummadii ka xishoonayso hadhowna waxay leeyihiin magaranaysaa gabar baa la caaya war gabadha waxaan maaha gabadhniyo naag duurka galaysaa gabadh lagu sheegay hablaha kale meel caay oo ku jira meesha la daawanay haniyo reer miyi baa badan iyo war Maraykan dadkan jooga reer miyi badan dadkan Maraykan jooga aniyo meedia waxaan video game waxaan Maraykan jooga wax reer miyi badan noloshu imka cusub tahay beerahan iyo duurkan la isla tagay oo cusub yihiin in kolba duur la galo oo magaranaysaa duur lagu raaxaysta ayaa sharaf la moodaya wixii baa la soo duubaya wixii baa magaranaysaa ummadii wareeriyay dadkii baa ku fidnoobay waxaan idiin sheegaya qof baa wuxuu soo qorayaa sidee lagu ogaaday inay niislaanta horta mid baan idiin sheegaya mid baan idiin sheegaya war waxa weeye qofka dumari waxaa la rabaa horta inay nin duur la tagto oy magaranaysaa israacaan ninku doonahaado ninku muu ku qabaa waa maya qofku yani xaaska dee ninku xaaskiisa wuu israaci karaa laakiin gabadh soomaaliyada oo islaama diintu ma ogola inaad duur habeennimo asla tagtaan welibana dharkiina aad soo dhigato lagu arkayo inaad darba xidhnayn meel baan koraya waa isqaawinaysa ilaa boodada la qaawinay ma fahamti waxaasu ilbaxnimo maya haddii waxaasu ilbaxnimo tahay dee ii sheego waxaa tira mawlido badowgaatee la qabsan dhaha ruuxaas waa diin la-aan meesha ugu dambeysay ma fahamti lacag baa caruureeda lacag ay ku qaadanaysaa caruurtii bay dulmiday baa laleeyahay cabdixakiim baa ka hadlayey dadkii Maraykan joogay baa ka hadlayey Safiya Bunku caruurteedii bay cuquba ka shaqaysanaysaa laba caruur haysata baa lii
oo ma garanaysaa ay carruurtaas waaba aragteen badda iyadoo soo dhigaysa ma fahan haddii wax loo sheegana 60 jirka haddii wax loo sheegana dad baa ku maagay kule maxaad ku leedahay ya ordooniga soo xidha annaga hana wareysanine ordooniga soo geliya dadkan bilaa dhaqanka meesha kusoo deysay media ma fahanti war qof bilaa niga saa wuxuu ku leeyahay yaa layla hadlay see lagula hadlay ummadda niga iska soo xishood oo beertan iyo duurkan aad meereysanaysa ka bax duurka maxaa kaaga lumay silsilad baa kaaga luntay miya war waxaan idiin sheegaya Soomaaliyeed qof dambe oo soo ooya oo yiraahdo waxbaa qof igu sameeyay dhalinyaradu waxaan leeyahay anigu malihi ma garanaysaa wax ku kufsada iyo wax ya dhaqan xumo sameeyay malihi laakiin gabadhii qof duur u raacda ama isla soo sawirto video la soo gasha iyada ayay u taalaa haddii wax ku dhacaan Soomaali dambe oo ma garanaysaa ay soo qaawinayso u soo ooyaysaana walaynaan jirin bal caawada ma tooyid waxaan aaminsanay haddaad caawa soo barato tiraa waxaas la igu sameeyay hal qof kuma soo difaacay waana adoo lagu kufsaday waana iska aamusay noqonayso adoo lagu soo kufsaday lagu dhibaateeyay in lagu hadli waayo taasa dhibaataa marka waxay noqonaysaa inaad waayahaaga laabta ku haysato waayahaaga hadduu macaaninkaas isaguna israahdo war imika markan lama difaacayo dad difaaca ma haysatee ka faa'iideyso oo wax samee oo de qofkan bilaanigiska ku timid ba hawlaheeda gal ya warniyo dhageysta Mareykan waxaan imika tiilka casay isku dhajinaysay tii stage ilka casay la taagnay wax nigi samee xidhnay soo ma arkay waarkiisii de gabadha imika ilka casay isku dhajinaysay kan xuna dhandaan kan nacaska wax dharamay xidhnay waa la arkay dadku arkay wax muuqda de waxeediba meeshaas ku muuqda ma fahanti waana Mareykan baa waxa laga sameeyay marka waxaan leeyahay dadkiina Mareykan joogo nigis naga soo xidha dadka Yurub jooga hablaha Yurub jooga iyo ragga Yurub jooga way xijaaban yihiin dumarkan bilaa nigiska media ku soo deynaysa stage-yada isku dhaweeyay naga joojiya bal gabadh qoro Yurub joogto bilaa dhaqankeeda xun yahay la soo helo waxa duurka la gelayo oo Mareykan bay yimaadeen waxa stage-yada isku korkoray ilka case teamkiisaas Mareykan bay joogaan ruuxan niyo Mareykan qashin baa ka buuxanayo ma fahanti habrahaas iyo waxaas iyo dulligaas waa waxay sababta mar walba media waxaan ka sheekaysanaa wax reer Mareykan noo soo xawleen ama naag bilaanigisa ama mid kale wali ma arag gabadh Yurub joogto dhaqan xumo sameeyay oo si toos ah bilaanigisa halkaas ku marayso oo soo taagin markiis waa islaam Mareykan ka timid mid wareertay mid fanaana oo meesha jooga fanaaniinta ugu dhaqanka xunna waxa weeye waa ku Mareykan jooga kaba yare timaas soo xiratay waa bilaa dhaqan kaba yare tilay waa bilaa dhaqan dharkay soo dhigatay iyaduna waa qaawanti bal dumarkan Yurub jooga fanaaniinta iyo hablaha Yurub jooga anu wax dhibaato uma hayo America freedom ba ka jira maxaa soo qoray ninkaas warkaysi maadigi baba saaw soo leeyahay adigi ninka culus ahaa ma la freedom ma ka jira okay xurriyadda markaas reer Mareykan qalad baa ka faanteen xurriyaddii ma waxay maraysaa in buumadii iyo nigiskiiba laga tago okay kaadi waa freedom ya muxuu soo qoray ninkan waxaan bilaa nigiskii wada bilaa dhaqankan muxuu kana soo qoray hanad sawirkii siyaad barhaw saara wariya sawirkii siyaad barhays ka dajiyay naxariista bilaa dhaqan baa wariya hanad sawirkii siyaad barraad soo dhigatay waxaan soo qortay we don't have a time for nigis and we need waqti ma hayna buu leeyahay nigaas inaan nigis xidhano sawirkii siyaad barnaamij soo saar marka waxaan u sheegayaa Soomaalidaas ee Yurub joogta dhaqankaas idinku ma lihidin hablaha ugu sharafta badan Yurub bay joogaan war haddii ay guursanaysan hablaha Yurub joogay Ilaahay barakeeyay hablaha Ilaahay barakeeyay Yurub jooga ninkii calaf rabo ka raadsho laakiin islaan soo weerartay oo 100 nin soo fureen mid ma garanaysaa carro ma garanaysaa xanuunsan ay haysato oo lacagta intay la ordo Kenya tagta ta kale waxaan ugu leeyahay ma taqaana
gabadh wal oo bilaanigiisa baa Nairobi tagaysa bal meel kale ma tagaysa ka warma ya wallahi Kenya baa loo sii socdaa Kenya war Kenya maxay noqotay ma wadanka Kenya la leeyahay Kenya culimada joogta culimadii Soomaali ugu waaweyned baa joogta waxa joogta Sheekh Umal baa jooga Sheekh Umal baa jooga Sheekh Shibla jooga Sheekh Xasan baa jooga Kenya yani diinta taala waad yaabaysaa hanad waa gabadh baa leeyahay hanad waa gabadh miya ma waxaan ku diiday wuxuu sitaa gabadhan maxay tahay أنا hablaha Yurub jooga habla ka wanaagsan ma arag oo ka sharaf badan oo magaraansaay wax akhlaaq darro soo jiida wax duur meereysanay kuma arag warniyahow gabadh baa waxay noo soo qortay Mareykan joogta warniyahow gabdho fiican baa jooga caday naga kala daa okay walaal Khadra Cabdullaahi horta gabadh adigu asturan baa tahay gabadh qurux badan waa tahay ma sha Allah gabadha Khadra waa Mareykan jooga maxaan ka hadlayaa dumar fiican way joogaan Mareykan dumar fiican way joogaan oo xijaaban laakiin waxa ka batay waxa bilaa dhaqankaaba ka batay ma fahant de dumar wanaagsan way joogaan anigu malihi Mareykan waxa wada jooga dhawaaq laakiin dumarka xun inta xun bana media lagu arkaa ya inta xun meelahaas beeraha joogta ayaa horta kaarkeeda ka gubtay hablow gabadha Khadra oo kale Khadra waxa ugu qoran Khadra Cabdullaahi gabadhaas waa arkaysan si uu de u xijaabantahay dhaqankii Soomaaliga ay u leedahay dad arkaysan ya yani hal tin macal laga markay ma sha Allah dumar badan oo xijaaban oo wanaagsan way joogaan laakiin Mareykan markaan ka hadlayo sababta loo haysta waxa weeye war fanaaniinta ka ugu dhaqanka xun la ilka casa jooga ilka casa kale leeyahay Mareykan buu joogaa ka imaata waa ka ugu xun weey dumarka bal stage-ka taagan ee iyaguna bilaa dhaqanka ah waxaa soo midhama meesha qashin baa ka buuxa meesha ma wala la yani anigu ka hadli maayo dad fiican way joogaan qalay fahmina Sahra Odowa adigu Canada joogtaa Mareykan baan ka hadlaya anigu Canada kama hadlayo Canada wadanka Canada la dhahdo wali qof dhaqan xun ma arag hay gabadha soo qoraysa waxa la leeyahay USA gabdho fiican baa ka buuxa horta inta la arkay inta media lagu arkay ama fanaaniinta oo ah waa inta ugu socodka xun leh ma garanaysaa waxa jooga meesha waxa jooga waa North America bal waxa joogta meesha Fadxiye Cabsiye naag la leeyahay kor Fadxiye Cabsiye oo dhaqan xumo koobka qaadiga joogta Mareykan Fadxiye Cabsiye joogta meeshaas oo habeen walba culimada soo caayis kuwa culimada soo caaya Mareykan bay joogaan dhamaantood Fadxiye Cabsiye oo culimada soo caayida joogta maamuliyun ayaa joogta maamuliyun baa joogta Fadxiye Cabsiye joogta waxa joogta Kaba Yare waxa joogta Hodan Cabdiraxmaan waxa joogta gabadha Hodan lagu sheegayo Safiya Bunka joogta waxaas meesha ku haysan waxaas dadkaas ku haysan dadka ugu waalan baa jooga meeshaas ma fahant marka reer Mareykan bal gabadh waalan oo Yurub joogta oo kaas ay soo sheeg ya gabadh waalan oo madaxu waalan oo diinta marna ka baxaysa marna soo galayso Yurub joogta sheeg hablaha Yurub jooga waxaan leeyahay sida kuwada dhaqan baa leedin karaama leedin muxuu soo qoray ninkaas kabla laxbuu soo wuxuu leeyahay USA kharaamin baa ka buuxda warunta ninkaas wuxuu soo qoray kharaamin baa ka buuxda saaraha miyad naxay walaal waa maasan way bal gabadh waalan oo Yurub joogta wakaas dabacasar baa la jooga dabacasar nooca meeshaas u jooga kuwa ugu waalan dabacasar baa jooga maamuliyun baa joogta Fadxiye Cabsiye joogta Safiya Bunka joogto duurka meeraysanaysa saqda dhexe ma fahant
dadkaasaa joogan meesha dadkaasaa jooga islaamaha ugu wanaagsan meesha jooga marmarka qaar taga hiba nuur oo kale gabadh sharaf leh fanaanad hiba nuur oo kale waa gabadh sharaf leh fanaanada hiba nuur oo kale ma isqaawisho hiba nuuro weligaa ma arkaysa fanka si saxay ugu jirtaa saara iga wareeji waxa weeye markaas hiba nuur oo kale dumarkii fanka soomaaliyeed ugu wanaagsanaa bay kamid ah hiba nuuro khadra daahir waa dumarka sharafta leh ya bal ka warrama fadxiya cabsiyaa joogto habeen walba culamada soo caysa oo ka sheekeynaysa gabadho hadday magaranaysa ninka u diido way diidi kartaa waxaa ka sheekeynaysa meme hibanuro waxa weye fanaanada ugu sharafta badan leh waa hibanuro gabadhaas waxa weeye soomaaliya o dhan baa isku waafaqsan waxaa lasoo qoraya deeqafraa joogta deeqafra way toobad keentay waxaa laysoo qorayaa yurub deeqafraa joogta deeqafro intay waalatay tiri waxaan tegayaa cawaan baan guursanaya waa tii qur-aan la saaray qofka yurub magaranaysaay fanaanada yurub khafiifta maaragta gabadha fanaanada yurub joogta ee khafiifta cashar baa la saaraa cashar marka khadra afro naagaha ugu walwaalan bay ku jirtay waa la kaxeeyey qur-aan baa la saaray cawaanka ahayd waanu tegay waa iska daysay sharaf imika le waxaa laysoo qoraya khadraa joogta khadrana imika waa caadi bay noqotay okay bay noqotay khadrana waa lala hadlay imika carruurteeda korsataa war yurub dumarka jooga gabadh xun anigu kuma arag gabadh xun oo yurub joogta haddaa ii soo qortaan waa sheegaya jugtaa la soo qoray jugtu xaggey joogtaa war nagala taga waxaniyo ma qof jugta la dhawa ayaa yurub joogta war naga taga way biguac baa lasoo qoraya marka waxa wey waa waxaan idiin sheegayaa maraykanow wixii xun ba idinkaa leh wixii waalan ba idinkaa leh islaamahan lacagta loo ordaya marna cabdicajuun u tegaya marna nairobi tegaya marna masar ka degaya waa idinka nimanka fanaaniinta ugu akhlaaqda daran leh waa xaggaas fanaaniinta yurub joogta nin bilaa akhlaaqa weli ma arag hanaa abubakar baa lasoo qoraya waa lasoo qoraya orta hanaa abubakar waa tuuga carruurta xadda laakin ma aha iyadoo dee meelaha bilanig isku maraysa lama arag hani carruurtun bay xaddaa laakin dhaqankeeda kale waa iska caadi hana oo kale dhaqankeedu waa iska caadi carruurteeda lakin iyadoo dhibaato xasan qalanjo norway mayl waree dhaha xasan qalanjadaas muxuu ah xasan qalanjo muxuu samayn jiray hadduu norway joogo xasan qalanjo waa nin miskiina hana abubakar carruurta iyo waxaas may xaddaa ma ahaane laakin yani waxaan ka hadlayaa duurna nin uma raacdo meelahaas ma gasho daahir iyo shiina iyo waxaas lasoo qoraya kuwaasna maxay ka hadlaan labadaa nin ay soo qorteen ma inay magaranaysaayay dee iska yihiin wax mooryaana laakiin ninkaa daahir ay sheegaysaan waa nin magaranaysaayay xoogay magaranaysaayay iska xorow weyn waa wadaadada magaranaysa xertaa weyn xataa xaaskiisa saaratuugo waa gabadh iska xijaaban weyn gabadhiisu daahirkaas ay soo qoraysaan daahir saaratuugo xaaskiisu maca waa xaas iska xijaaban weeyaanoo maaha magaranaysaayay dumar qur-aankay dhigtaa waa iska xijaabantay magarata maaha gabadh magaranaysaayay dee waxaan bilaa dhaqanki bilaa nigiska maaha meesha meereysanay maha siyaasadda soomaliya mar horaan ka hadlay war waxaan wa idiin sheegaya reer maraykanow canada meel soo qoraya mid ayuu sheegaya gabadha saaratuugo sharaf bay leedahay gurigeeda iska joogtaa tiktok ku arki maysid whatsapp ku arki maysid wallahi gabadhaas waa miskiin weyn gabadhaa daahir qaba waa gabadh miskiin weyn xijaabkeeda xidhanta xijaabka hadduu dama cadaaday maxaa gabadh xijaab waxaana soo diraysaan bilaa xijaab weeyaan bilaa waxaan duurka meereysanaya maraykan baa laga soo diraya dhaqan xumada naga daaya ilmaad reer naga daaya dhaqan xumada egas sheekh mawlid cabdillahi cumar ku dar
saaratuug horta mideedii sheegay magacu dhib ma laha magacu dhib ma laha imika qof xunoo Yurub joogay soo qora ma gabadhu quraan ba muunay maxaa leedahay quraan ma dhigtaa muunadaas bareey joogtaa oo gabadh isaaq weey gabadhu quraan ma gabadha daahir ma dhigto quraan miya hadii horta